رئيس وزراء الصومالي حمزة عبد بري ayaa la filayaa saacadaha soo socda inuu gaaro magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug xilli heshiis dhameystiran laga gaaray khilaafkii u dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale hoggaanka maamulkaasi ee Galmudug. Safarka Raiisul Wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa maalmihii la soo dhaafay qorsheynaya inuu halkaas u gaaro, iyadoona wararka qaar ay tilmaamayaan in booqashada Raiisul Wasaaraha ay la xiriirto xoojinta wada shaqeynta dowladda federaalka iyo Galmudug iyo dardargelinta arrimaha doorashooyinka, taasoo dhowaan la filayo in halkaasi laga qabto doorashada golaha deegaanka iyo sidoo kale golaha wakiilada kadibna si toos ah loo doorto doorashada hoggaanka ugu sareeya ee maamulkaasi. Booqashadan ee Raiisul Wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa waxa ay sidoo kale ku soo aadaysaa xilli la sheegay in la xaliyay khilaafka siyaasadeed ee muddooyinkii dambe u dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale Galmudug, kaasoo salka ku hayay arrimo la xiriira hoggaanka maamulkaasi in mar kale dib u tartamo Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, kaasoo gebi ahaanba dowladda federaalka Soomaaliya ay si weyn uga soo horjeesatay iyadoo halkaasi u sharaxday musharax kale oo lagu magacaabo Liibaan Axmed Xasan. Ilo wareedyo ayaa sheegaya in wada hadallo iyo sidoo kale dadaallo diblomaasiyadeed oo socday ay horseedeen in la gaaro isfaham cusub oo labada dhinac ah, dib u celinta wada shaqeyntii caadiga ahayd. Dhanka kale, amniga magaalada Dhuusamareeb ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo la kordhiyay ciidamada sugaya amniga magaalada iyo goobaha ay martida heer federaal ku tagi doonaan. Waxaa sidoo kale la filayaa in Raiisul Wasaaraha safarkiisu ku weerin doono wasiiro iyo sidoo kale mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Kulamo la filayo inay ka dhacaan Dhuusamareeb ayaa diiradda lagu saari doonaa xoojinta xiriirka dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale Galmudug, dardargelinta dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyo sidii loo dhameystiri lahaa doorashada dhowaan la filayo inay ka dhacdo deegaanada maamulkaasi ee Galmudug. Muddooyinkii la soo dhaafay waxaa si weyn u soo shaabaxayay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale hoggaanka maamulka Galmudug ee Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, kaasoo mar kale doonayay inuu halkaas ka tartamo, balse dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay gebi ahaanba halkaasi u diiday inuu mar kale xisbiga talada haya ee JSB uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu mar kale u tartamo Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, kaasoo ay musharax kale ka dooratay. Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu kulamo la lahaa agaasimaha NISA Mahad Maxamed Salaad, kaasoo erga ka ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Heshiis dhowr ah halkaasi la sheegay inay wada galeen arrinta khilaafka muddada dheer u dhexeeyay hoggaanka maamulkaasi Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud halkaasi lagu soo afjaray, sidoo kalena si nabad ah oo xukunka ugu dago Axmed Cabdi Kaariye Qorqorna sidoo kalena uu kula shaqeeyo shakhsiga ay wadato dowladda federaalka Soomaaliya ee halkaasi u sharaxdo inuu hoggaan ugu noqdo doorashadana uu si weyn uga shaqeeyo markii la doorto hoggaankaasina uu si nabad ah uu ku wareejiyo xukunka shakhsiga ay xisbiga talada JSB hayso.